kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub oo wax badan ka bedeli doona noloshaada. waxaan idin soo gudbin doonaa muuqaal aad u baahan tahay in aad daawato, muuqaal bedeli doona hab nolol maalmeedkaada oo wax badan aad ka faa'iidi doonto. badi dadka dunida ku nool ma jecla kicidda goor hore, laakiin runta qaraar ee aad u baahan tahay ayaa ah maalintaada iyo subaxnimadaada ka guulgaar. hano oo qabso kontaroolka subaxnimadaada waa hanashada maalinimadaada oo dhan. xaqiiq haddii aad subaxnimadaada qabsato oo aad hanato, maalintaada inta ka hartay waxay kuu noqonaysaa mid wanaagsan. riyooyinkaaga meesha xaqiijintoodu ay ka bilowdaan waa kicidda goor hore, yacni xilli hore in aad toostid. xilli dad fara badan ay jecel yihiin inay sii wataan burburkii ka haray habeennimadooda. qofna ma jecla in joodariga iyo sariirta uu ka kaco xilli hore, maxaa yeelay wakhtigaasi waa wakhti naftu ay jeceshahay dul aalidda sariirta. waa wakhti qofka hamiga leh uu kaco. waa wakhti dadka isbedel doonayaasha ah ay kacaan, ayna isbedel ay sameeyaan. goormaad kacdaa? ma 4 ma 5 ma 5:15? wakhtiga aad kacdo waxuu tilmaamaa qofka aad tahay. ma dadka caajislayaasha ayaa tahay? ma dadka hurdo oo aan waxba aanan aqabsan ayaa tahay? qaabka aad kaga falceliso maalinimadaada ayaa noqota qaabka aad u wajahdo jadwal maalmeedkaada. waxaa kuu soo gudbinayaa ilaa iyo 5 qodob oo kugu saacidaya inaad xilli hore kacdo oo isbeddel la taaban karo aad samaysid, xaqiijisidna riyooyinkaaga. qodobka koowaad waxa uu yahay xilli hore seexo. seexashada xilli hore ee habeenkii ah waxa ay ka mid tahay waxyaabaha kuu fududayn kara in aad goor hore ka kacdo sariirta oo aad xaqiijiso riyooyinkaada. in aad xaqiijiso riyooyin fara badan oo aad ku taamaysay. maamaha ingiliish ah ayaa waxay dhahaysay early to bed, early to wake up. xilli hore seexo, xilli hore aad kacdide. qorahdaasi waxay si weyn u taabanaysaa dadka wakhti hore seexda, wakhti horena kaca. haddii aad goor hore sariirta aad tagtid oo aad seexatid, waxaa kuu suurtagelaysa in aad xilli hore sariirta aad ka toostid. qodobka labaad oo aan doonayay inaan kula wadaago wuxuu yahay marka ugu horraysa oo aad kacdo u mahadnaq allaah oo nafta kugu soo celiyey. kadib musqusha gal oo biyo qabow ku qubayso. way adag tahay in xilligaasi biyo qabow lagu qubaysto, laakiin waxay kaa saacidaysaa in caajis kasta oo ku haya uu kaa baxo. qubayso oo biyahaasi qabow jirkaada ku meer. si wanaagsan oo qurux badan u qubayso. kadibna salaad sunno ah duko oo akhri qowlka eebbe, maxaa yeelay qowlka eebbe ama kitaabka qur-aanka kariimka haddii aad ku bilowdid maalinimadaada waxay kuu noqonaysaa mid aad u qurux badan oo barakaysan. qodobka saddexaadna waxa uu yahay jadwal maalmeed samayso. qofka meesha lagu ogaado noloshiisa waa jadwalkiisa. haddii uusan jadwal kuu degsanayn, waxaa tahay qof iska socda, qof eber ah, yacni jahwareer ayaad ku jiri doontaa. haddii ay kuu qoran yihiin waxyaabaha aad qabanayso maalinimadaada, hubanti waxaad noqonaysaa mid xaqiijiyo wax kasta uu ku riyoonayo, mid isbeddel sameeya, mid jadwalkiisa uu noqdo mid wanaagsan. haddii jadwal maalmeedka kuu qoran uu yahay mid si toosa aad u fulisid, aadan jadwalka waxba aadan ka khaldin, noloshaadu waxay noqonaysaa mid aad u wanaagsan. qodobka kan ku xiga oo dad badan aysan ku baraarugsanayn ayaa ah samaynta jimicsi. adiga muuqaalkan daawanaya waxaad isweydiinaysaa sidee jimicsi ku sameeyaa? anigoo gurigayga jooga, jimicsiga keliya uma qaas aha goobaha jiimka iyo meelo kale. adigoo gurigaada jooga ayaa jimicsi fudud oo aanan daqiiqado badan kaa qaadan samayn kartaa. jimicsiga wuxuu yahay waxyaabaha kaa dhiga in noloshaadu ay noqoto mid noloshaada wanaagsan. tusaale, jimicsiga haatan aad daawanayso uma baahna in aad goob jiima tagtid. tusaale, jimicsiga aad haatan daawanayso uma baahna oo keliya midkan in aad goob jiim lagu qaado jirdhiska lagu sameeyo aad tagto, in aad garoon kubadeed aad tagto, kadibna aad orod fara badan aad samayso. keliya waxay u baahan tahay in adigoo gurigaada jooga jimicsigan oo kale aad samaysid. qodobka u dambeeya oo aan doonayay inaan muuqaalkan ku soo gabagabeeyo waxuu noqonayaa dhegayso waxyaabo ku dhiirigeliya. akhri buugaagta ay qoreen
dadka guulaystay oo ku saabsan nolosha iyo isbeddelkeeda. Akhrinta iyo dhegaysiga waxyaabaha ku dhiirigeliya waxay kaa caawinayaan isbeddello waaweyn oo la taaban karo inaad samaysid. Dadka badi nool waxay ku kala duwan yihiin waxyaabaha ay haatanba ay sameeyaan. Dadka qaar ma jecla akhrinta buugaagta, ciyaaridda waxyaabaha lagu madadaasho oo qof heerkaaga taagan faca ah uu soo saaray uu lacag ka raadinayo ayaad noloshaada hoos u dhac weyn ku keeni kara. Waxaad leedahay hooyo, aabe, walaal, deris iyo asxaab. Dadkaasi oo dhan waxay kugula dhaqmi doonaan sida aad adiga ula dhaqanto naftaada. Ixtiraam oo u naxariiso naftaada, u dhimri oo ku hag naftaada waddada aad adiga u baahan tahay, yaysan kugu hagin waddada ay iyadu u baahan tahay. Maxaa yeelay naftu waxa ay jeceshahay inay iska huruddo. Naftu ma jeclo jimicsi, ma jeclo kicidda aroor hore, ma jeclo akhrinta buugaagta, mana jeclo naftu in ay isbeddel samayso. Laakiin qofka u baahan isbeddelka inuu sameeyo waa adiga. Haddii aad naftaada aad adiga hoggaamisid, noloshaadu waxay noqonaysaa mid wanaagsan. Laakiin haddii iyadu ay ku hoggaamiso, noloshaadu waxay noqonaysaa mid eber ah. Qof eber ah ayaad ku soo baxaysaa. muuqaalka intaasaa kusoo gabagabaynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.